Hallo, ja, dit is niet de officiële microfoon, dit is alleen voor de camera. De microfoon voor ja, de hele show, die doet het helaas niet. Dus ik kan jullie niet begeleiden tijdens de show. We krijgen verschillende dames, voornamelijk uit Oost-Afrika, Eritrea, Sudan en Somalië krijgen we voornamelijk allemaal te zien. Ze zullen kleding showen, traditionele kleding, moderne kleding, feestelijke kleding. De opening zal zijn door mijn eigen zusje. Zij gaat kleding showen in de zin van ja, de bruidegom. De toekomstige bruidegom zal een hele mooie groene jurk aandoen. En daar zullen we mee beginnen. Dus veel kijkplezier en ik hoop dat jullie van zullen genieten. Ja. degmada ku hayaba madaxiisaan u baxay muddaan xaraf tegay mataanaha nasaha iyo sheekh madar milay dheer maanka waxaan degmada ku hayaba madaxiisaan u baxay muddaan xaraf tegay mataanaha nasaha iyo sheekh madar hablahan magac weyna geysa ku maray mahuraanka burciyo togdheer madasha ah lugaal xaysiyo maydh maashiiyey habluhu bclub19.com hablahan magac weyna geysa ku maray mahuraanka burciyo togdheer madasha ah lugaal xaysiyo maydh maashiiyey habluhu marsawacan boosaaso iyo mudug laha muqdishiyo marka cadgaala mawjada habaydhabo kismaayo kumiyan mirta gaarisa mulaaxada jigjiga malkada boorame masnada diridhabe maamuusta hablaha jabuuti mugweyn marsawacan boosaaso iyo mudug hablaha muqdishiyo marka cadgaala mawjada habaydhabo kismaayo kumiyan mirta gaarisa mulaaxada jigjiga malkada boorame masnada diridhabe maamuusta hablaha jabuuti mugweyn bay mugdiyeen macduud ku sharaxay ka mabsuuda intaan dhammaan magacdhabe qurux bay mugdiyeen macduud ku sharaxay ka mabsuuda intaan dhammaan magacdhabe waa gabtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada ii dhaxliyo midaan la dhashee Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van onze show. We hebben er veel tijd in gestoken om deze kleding allemaal te vinden. De stichting Elkaar die is dus al sinds de zomer bezig en proberen dus geld in te zamelen, zoals de voorzitter al aangaf, voor wat armere mensen in Oost-Afrika. En we zullen straks ook machtigingsformulieren rondgaan in de hoop dat jullie misschien ook een bijdrage zouden willen leveren aan onze stichting. Daarnaast hebben we ook donatiepotjes, dus als u misschien wat kleingeld heeft, zouden we dat ook zeer waarderen. Want we doen echt onze best om leuke evenementen te organiseren en om ook echt wat terug te doen voor de maatschappij. Want veel mensen realiseren zich niet hoe goed wij het hebben. En ja, daarvoor moeten we gewoon wat terug doen. In ieder geval heel erg bedankt voor jullie komst. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Goedemiddag, beste dames en heren. En ja, ik ben hartstikke blij dat jullie hier komen. Ik zeg jullie, welkom eerst. Drie keer welkom. Ik ben hartstikke blij met jullie. En wij bedanken jullie voor jullie komst. En
Ja, ik ben de voorzitter van Stichting Elkaar. En Khadra Hussein Allale ben ik. En ja, deze show vandaag we hebben gemaakt en voor een donatie om te helpen, geld inzamelen, om te helpen en arme mensen in Oost-Afrika. Vrouwen, kinderen, ja, die hebben ons nodig. En ja, wij zijn dus een multiculturele show. Straks gaan wij verschillende vrouwen hier jullie laten zien hoe onze cultuur en andere culturen van andere vrouwen. Dus ik zeg aan jullie, genieten maar voor deze modeshow. Ja, en nu ik geef aan mijn collega Ferouz Ali Aden. En ze gaat nu vertellen in Somalisch taal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudwan en marwoonin iyo mudanayaalba dadka maanta halkan iskugu yimiday xafladan aadka u quruxda badan leh en aad ugu faraxsanahay inay maanta ka soo qayb galaan dad aad u qurux badan oo qiimo badan ay ka mid yihiin maad aragtay qurbo joogta wadanada kale ku nool ee ka soo jeeda Djibouti taayon aad farxad igu muujisay oonan aad ugu mahad celinayo iyagoo ka kala yimiday wadanada Belgiga en Ingiriiska iyo Skandinaafka. xafladan oon iskugu imanay haddaan nahay foundationka Elkaar inaan nahay qurbo joogta ka soo jeeda hooyada Djibouti. annaku waxaan ka imanay wadankii Djiboutina waxaan niri bacdama aan nahay hooyooyin ku nool qurbaha oo aad u farxad badan oo ubadkoogu wax kasta haystaan inaan ka fikirno ubadkayagii joogay Afrika iyo hooyooyinkayagii sida iyadoo kale joogay Afrika inaan wixii aan tari karno maal iyo maskax ahaanba aan u gudbino oon dadkayga garab joogsano. marka waxaan maanta u qabanqaabinay waxaan sameynay bishii 9 November yaan sameynay multicultural dag waxay ahayd wax la yiraahdo intercracy wuxuu ka bilaabmaa inaad qofka saamin leevin qofka la nooshahay ee la degan tahay ee luqad quraata wadankii isku keeneed wala wadaagaysiin inaad maad aragtay aad isbaratiin oo isdhex gashiin. marka tii markay noo dhaqaaqday noo suurta gashay waxaan ku dhaqaajinay inaan sameeyno inaan dhaqankayagii aan ku dhaaranaynay in ubadkayga inaan barna ahayd bacdama hooyaan nahay hooyadu waa guriga afartiisa geesood weeyaan. marka bacdama aan hooyanahay waxaan dhaqaajinay inaan maanta halkan iskugu keenno oo meeting ku kooban is arag iyo maxaa la yiraahdaa isbarasho dhaqanadii kale iyo dhaqankayagii oo ku faanaynaba aan ubadkayagii yaryara u soo xudhnay oonan in tusayno. marka aad baan inigu mahad celinaynaa aadna waan inigu faraxsanahay waxaan mahad aad u celinaynaa inamada qaaliga nagu ah ee ka soo jeeda Jamhuuriyadda Djibouti ee wadanada gaarka ka yimid ee Yurub iyagoo maanta halkan aan ku wada wadaagnay farxad aad u qurux badan oo la koobi kareen aad baad u mahadsantihiin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. horta dhamaan aad baad u salaamantihiin waanad ku mahadsantihiin fadhiga kanaad maanta aad noogu timaadeen baaqi leeni soo diray inaad ka soo jawaabtaan aad baad ugu mahadsantihiin. maanta ma sha Allah dadku aad bay u wada qurux badan sidaan u arkayno fadhiga kanaan isugu imanayna inaad ku soo tala gasheen inaan aad u muujino dhaqan iyo dadnimadeena iyo walaaltinimadeena qurbada aan ku hayno. maanta waxaan kaga soo qayb galnay fadhiga kan oo ah fadhigii anaguna u horeeyay ay qurbo joogta reer Djibouti wadan wal ay joogaanba inay yimaadaan aan kaga shirno maanta oo dadka badankoodu ay aad uga soo jawaabeen sida maad aragtay Ingiriiska dhalinyarta ka socota Belgiumka Skandinaafka si hadda u sheegtay walaashii Firdausa iyo wiil walaalkeenu Axmed oo ka yimid Swiiska
marka aad baad ugu mahadsantihiin annagana waxay noo tahay farxad aad u weyn in maanta oon kaga qayb galno fadhiga kan dhaqan iyo walaalaha iyaga inaan aragno iyo dadka yaraanta badan leh dhulka kan ku yimid inaan ku xasuusino dhaqankeena aad baad ugu mahadsantihiin aad baan ugu mahad celinayaa walaalaha habradinta soo qaban qaabiyay waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah horta waxaan ku faraxsanahay meeshan ay dadka reer Jabuuti iskugu yimaadeen siiba gaar ahaan ururka Cukaar oo ah dumar ka shaqeeya maaragtay hidiya dhaqanka waxaan doonay horta inaad ogaatiin maanta waxaan u niminay xaggan intaan la kulamno jaariyadda reer Holland siiba maaragtaasi dadka ka dhaqdhaqaaqa ee wadankeena wax u dara sida Cukaar oo kamid ah diasporaga Holland xilligaasi waxay tahay in kastaan ay dadkii reer Jabuuti inaan had iyo jeer ururo sidan aynaas ugu nimaano aan wadankeena aan u taageerno aan waxaan u siyaadin karano shicibka Jabuuti ku nool inaan had iyo jeer faladkeyga aan galno gaar ahaana maanta waxaan u soconaa inaan la kulamno jaariyadda reer Holland siiba kuwa maaragtaasi shaarkooyin ka mid yihiin dawladda ee taageera maantana waxaan leenahay shir gaara oo diasporaga ka mid ah oo taa federationka Europe oo dhan iskugu imanayso oo aan kaga hadlano sidaan u taageeri lahayn wadankeena siiba taasoo yara kooban dhinaca siyaasadeed iyo sidii maxay ahayd in wadankeena aan wada u soo siyaadin lahayn xilligaasi waxaan doonaynaa inaan yoogeysino inaan dib u soo laami doono le 8 mars bisha maxay ahayd maalinta 8 bisha mars taasi oo ah arrin guud ahaaneed aan ula socono oo la tiigsanano dawladdu siday u aqoonsanaan lahayd diasporaga Europe hadalkaygana intaa baan kaga baxaya كل هذا البلد بيتنا مرينا يبغى ولا وديلي لكن وحن أن تدري لها إن أدنى ما تذكي كسوق مقابلي حفلة الأكل وربنا أو أي كميدين قد حسين أو أد يسكوسها أو شيء أو أورك مارتين حلا فورستكا يو إن أنتي كلا لقبتي واحد أكتين waxa ay ka diibeen gabdhahani in maaragtay waxa la yiraahdo danyarida ka jirta dalkeedii Djibouti ayaa ay ka diibeen taas ay maaragtay waxa la yiraahdo una sameeyeen maaragtay waxa ay sameeyeen istiqlal lagu faani karo macnaha urur lagu faani karo waxa maaragtay ay sameeyeen urkaas waxayna geeyeen lacag maaragtay Djibouti waxay u qaybiyeen dadkii maaragtay danyarta ahayd ayna soo celin doonaan dadkaasi marka ay ku shaqeystaan adduunkana waxa ugu wanaagsan oo lagu faanayo waxa weeye in qof aad shaqaysiiso marka taas amaanad maxaa la yiraahdaa ay sameeyeen warka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyaka waxaan kale oo ugu mahadnaqayaa dadka na siiyey meesha dadka na siiyey Esperance in de ben ik heel bedanken dit groep. Ja, hier is het, geweldig. سمارة العدوان أنا مرة كسوة. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلامتي دمان ضد كسوة قبلي حفلة قبلها أوكار. نوع السنة ناشن مركا آدم فرحسنا إننا كعاوية وتكرر قطع. وأنا أروح كلية وكشرة وضد كان أوكار. oo ka soo jeedo gabdho ka soo jeedo wadanka Djibouti jaarida Djibouti ani Ahmed waxaan u taaganahay marka inaan garab istaagno oo taageerno oo waxayno marka idinkana waa ku mahadsantiin dadka ka soo qayb galay iyo dadka meelaha dhaadheer ka yimideen waqtigiina aad siiseen waa gabdho aad iyo aad waa markii saddexaad aan ka soo qayb galayo Cukaar waa gabdho isku duuban ma sha Allah tabaarak oo u soo jeesada dadkoodii iyo dalkoodii maanta meesha waxay naga tuseen caruurtii halkan ku dhaleen dhaqankoodii iyo kultuurkiina wili haystaan marka waxaan rajaynayaa inay inta in ka fiican sii dhaqaaqaan waxaan rajaynayaa inay noqdaan kuwii u noqdaan by 4 bilood oo kale astaan u noqdaan gabdhaha reer Djibouti
hooyooyinka special Cokar inaadan meelo kala badan magaalooyin badan maadaama Cokar ay tahay meesha ugu horeysay xornimada doonka ka soo xismatay meel fiican bay sheegteen anigana aad ayaan ugu faraxsanahay inaan caawiyo idinkana waxaan rajeynaynaa inaan insha Allah aad ka caawin doontiin wixii ka qaldan advice ka siin kartaan waxay u socdaan waxay tahay waa dad annaga naga mid ah marka waan ku faraxsanahay بعدين وانا قروح شرفنا ولاده ما حيبتي قصو قيمه قصو انا عكاكي قصو قيمه الشوقه مرتين نوقتي من الجبده حوق المهسين اوكي يا waxaan mahad celinayna u celinayaa inanta amaan oo meesha iyagu leedahay ay nagu caawisay sidaynoo saante hawsha ugu qabsanay Ik wil iedereen welkom heten. Ik ben heel blij dat uit heel Nederland mensen, en ik heb gehoord België zelfs, mensen zijn hier te gast in het buurthuis in Almere. Dus van harte welkom. Het is een centrum wat open staat voor iedereen, 7 dagen per week open. We geven vooral classes in taal en kunsteducatie. En ja, heel mooi om deze mooie vrouwen een podium te bieden. Ik hoop dat het niet de laatste keer is, dus kom terug. Speciale feestelijke kleding, hè? Ze hebben feestelijke kleding gehad. Speciaal voor ons, hè? marka waxaan leeyahay hadii soo dhawaanaysa meeshii hadii waxaan ma garanay laakiin xoog badan ma ya assalaamu haddeeda xafladii dhammaatay aan iskugu imanay waxaan doonayaa qofkii jecel hablaha dhaqankiisa haddayna ogolaadaan inuu isku sawiri karo oo soo weydiinaynaa aad baanan ugu mahadsanahay hooyooyinka noo yimiday waddankanada noo dhexdiisa nooga yimiday iyo qurbajoogta kale ballaaranba waxa weeyaan hooyo unbaa wax qaban kartaa hooyo unbaa wax samayn kartaa hooyo unbaa wax beeri kartaa marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa weliba anigoo ka helay taageero xoog weyn walaashay Khadiija Aadan Dr. Khadiija Rays anoo ka helay oo na siisay ifaarin ay leedahay iyo garasho ay leedahay oo bacdamaa waddanka Soomaaliya uu jajab gaaray ayagu naga maskax badan yihiin inay naga waaya aragsan yihiin inayna tusaan inay hooyadu qaban karto hooyadu wax abuuri karto hooyadu dad isku keeni karto hooyadu ummad dhan ciyaari karto marka aad baan u faraxsanahay waana nigu mahadnaqaynaa insha Allah isaga dambe xiisan su'aasha soo qabanqaabay waxa weeyaan waxaan lahaynaa nafta waxaan ka abuurnay dumar baan ku abuurnay ururkaayo markii hore ku koobnaa maxaa la yidhaha inaan dhexdayada istaageersano dhibaato iyo farxadba bacdamaa qurbaha dada ay joogin oo nin kastaba ehelkii ka maqan yahay inaan anagu noqono gacan jirta oo wada qabsan karta markii aan haddeed adkaanay way aragnimo u yeelanay baan nidhi maad samaysatiin foundationkaayo sanadkii dhaweyd xagaagii dhaweyd kadibna ay dee noo sunto gashay inaan tallaabooyin aan qaadno ka mid ah inaan bixino taageero kreetiya dadka maqsiino iyo inaan bixino waxyaalo badan oo dadka keega isku keenay waxaan uga leenahay dhaqankayagii iyo dhaqamadii kale inay isku galeen muujino oon keenno soo qayb galay soo qayb galay Afghanistan Marokkaan baa ka soo qayb galay jahliyado badan baa ka soo qayb galay lacanadoodii soo bandhigay dareenkayga ma koobi karo maanta aad baan u faraxsanahay anoo foundationkaygii aan shalay aan lahaa wuu kooban yahay
oo wax tallaabadiinu aad bay u gaaban tahay ama maanta ku faraxsan oo arkaya inay tallaabadayadii dhaqaaqday meeshaan higsanaynana aad ugu faraxsan inaan meel dheer gaari karno hooyooyinka meeshaan ka imanay ka yimiday Jabuuti ka yimidayna aan jecelnahay taa aan maanta ku tallaabsanay dadkayga ka fikirayno inay iyaguna nala garab galaan ay noo soo jeestaan ay arkaan waxaan qabanayno ay u fiirsadaan ay kalgacaylo iyo gargaar buuxay maskax baa nagula soo ay nala xiriiri karaanba ay muujiyaan وحنا دائما ما نرجع برنامج كوبر بيناي سوى رجينا وأنا كل رجوين هاي إن تاجر فروق كهذا بعد ما تي ما نسبتي هاي وقول بها رفعت بس كبدأ هاي أي جد كان نص ومرات أي بود كبدأ أي نموذجين إن السكر بتاعهم حي وهذا الناس رجينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا waxaan uga jeednay tusno dhaqankayaga iyo hidahayaga dhaqan hinduuleeyahay in marka aan tusno labaadka kale uga jeedno waxa weeye inay isku arkaan meesha ay isku arkaan kadibna waxaan kale oo maaragtay waxaa la dhahaa maanta la joogaa gabdhaheenii Soomaaliyeed fara badan midda kale aad u jeed waxa weeyaan waxaa la dhahaa gabdhaheena Soomaaliyeed ee gabdhaha reer Jabuuti iyo gebi ahaan in dadku ay saddex waxa weeyaan horta Soomaaliya inaka wax ma kala haysano marka inay dadku isdhex galaan oo maaragtay maxaa taasna waan uga jeednay iyo in maaragtay lagu sar u qaado ururka Cokaar in maaragtay tan oo kale u sameeyno معناها ماشي واحد وجه اللي وحي هاي سفرية مركا كل مرة تيجي نقول أقدر سود دالين أنا والله ما نقيا أنت كسر شيء مرة نقرب كسر أقدر شمشة ضد كي كلا كسر دقيق كلا يو ميديا جا يو بحضرنا أقدر ما نقيا أقدر ما ست. بسم الله الرحمن الرحيم أنا حاجة مع الصومالية Soomaaliya jidka wanaagsan ee noo bilaabeen aad baa ugu mahadcelinayna kulankooda ah ka soo qayb waxaan isku dayaynaa boqolkiiba inay siday sameeyeen baan ka sameeyo si ugu dayay sameeyeen annaguna inaan ku dayano aan rajeynayna insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا الحقيقة سنة مثلا كذا كل بدن أو سوق مقالي وحنا رأينا حتى على كل حال سبية كان وعاملاية والوعاملاية بس الصومالية اللي ما تسمع أما المها نقدان أما هوين نقدان غير جبوتي وحنا هاد يقولون هالعناية قرب جوسي إذا قرب جوسي ودن كنا وضد كذي ووراله هني قبلها ووراله هني وحلينا هذلك أسميسه سيب بديه وحنا قد يصدق أنا كنا وعد كلميننا وحنا وحي تبرتنا وحنا غلطنا وأنا ما سكتين. كحي قوة سامية مسسوي أنا بعمل عكارة ويدي عكارة وحكون هالعلم يا هو يدا لقرأ ساقيب الشيء سومالوي يبقى قرب كيجي وقرب كيجي وراله يا ودنا هتسمعني بالله. حلنا جد كاسميرين جد